xubna kamida golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo uqaasha iyo wax garadka aqoon-yahanada gobolka Gabiley ayaa kulan ballaaran oo ay maanta ku qabteen xarunta dawladda hoose degmada Gabiley ay ujeedadiisa iyo ajandihiisu waa sidii loo horumarin lahaa diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland ee maalinta Sabtida ka bilaabmi doonta guud ahaanba gobolkani Gabiley iyadoo kulankaasi xubnihii wasiirada kala duwan ay isla qodobeeyeen sidii loo baraarujin lahaa dadweynaha ku dhaqan guud ahaanba gobolkaasi Gabiley ugu horreynna kulankaasi waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Yuusuf Garas Cismaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga wasiirka wasaaradda warshadaha iyo sidoo kale maayarka iyo barasaabka gobolka Gabiley xildhibaanada ka tirsan golaha wakiilada oo dhamaantoodba shacbiga reer Gabiley uga baaqay inay ka qayb qaataan maalinta diiwaangelinta madaniga ah oo ay sheegeen in loo baahan yahay in dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi Gabiley ay ka faa'iideystaan maalintaasi iyadoo gabagabadiina halkaasi deeq lacageed ugu deeqeen dadka abaaruhu saameeyeen iyo diiwaangelinta madaniga gaadiid loo kirayo oo dadweynaha lagu wacyigeliyay si ay uga qayb qaataan diiwaangelinta waxaana mas'uuliyiintii kala duwan ay halkaasi ka hadlay hadaladoodii ka mid ahaa كقارن هذا وصول نضو كل حيانك كوزيران مواجهة أما وقرب طبعا نقطة يجودي الأسرار جودي الأسنان الله بشقيه جودي كدفن أما يسكون دفن أو ككوبان تيجان كقول كبير يوم أو ورثة قارن جود أو لقوا بحد دورنا لبعض وعيدينتا يجاري كتفصيل قارن diiwaangelinta waa hawl qaran guud ahaan gaar ahaanna gobolka si gaar ah ayay u taabanaysaa maadaama gobolku uu doonayo oo uu ku tartamayo oo uu halgan iyo hayaan ugu jiro gobolnimadiisa waxa aan filayaa oo aan halkan ka soo jeedinayaa inay dhammaan dadka TV-ga naga daawanaya iyo dhammaan dadka goobjooga ah in ay diiwaangelintaasi sanadka guntiga dhiisha iskaga dhigaan ayaan jiro halkan dadka si xoojinaya oo ah in lagu jiro tartanku waxa weeyaan cid walba si isku diiwaangeliso ay diiwaangelinta uga qayb qaadato ayaa hadhow ay ku xidhan tahay tartanka goboladu ay isku faanayaan deegaanadu ay isku faanayaan xildhibaanka soo saarayso murashaxa soo saarayso waxaad ugu heelin kartaa codkaaga waana adigoo isdiiwaangeliya fikirka loo badan yahay ah in dadka reer Gabiley ee Hargeysa degan ay halka iska diiwaangeliyaan taas ayaan soo taageeraya ugu dambeyntii gabdhaha walaalaha ku qabsanaya xafladda uu qaaraanka u ururinaya abaaraha waxaan leeyahay ilaahay garab galo shakhsiyan waxaan ku deeqayaa $500 oo qaaraankiina labada wasiir ku xigeen Garas iyo Cabdirashiid min $500 ayay ugu deeqeen arrimaha diiwaangelinta jasaakumullahu khayr aad iyo aad baan u mahadsantihiin qodob waa mahadcelin anu mahadcelinayno dhalinyarta aqoonyahanka ee gobolka Gabiley oo ay ka muuqato rajo ah inay rumoobi doonto farahii iyo tiradii gobolka ku faani jiray markaad eegto sida xirfadda iyo aqoonta ku dhisan ee diyaariyay programka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah saaxiibkeen Xuseen Aadan Ciidan Deyb oo isagu ku deeqay $1,000 oo lacaga iyo 2 gaari oo la anfurisaa muddada ay diiwaangelinta socoto aad iyo aad ugu mahadsan waxaan anigu wasaaradda ahaan ugu deeqayaa sida Xuseen si lamida 2 gaari oo la anfurisaa iyo lacag $1 ayaa lagu ugu deeqay diiwaangelinta dhalinyarta aqoonyahankee macluumaadka runtii noo soo gudbiyay aad iyo aad waan ugu mahadcelinaynaa aqoontooda ay dadkoogii la wadaageen laba qodob oo adag bay labada qodobba gobolkii Gabiley maanta u yaalaan mid waa arrinta abaaraha oo dadkeedii aad iyo aad u jilicsan yihiin midna waa arrinta diiwaangelinta ku soo beegtay waqtiga aynu abaarta ku jirno
mas-uuliyiin ahaan waxaanu ku dadaalay annanu ku dadaalanay intii u dambaysay bal in marka horeba gurmadka abaaruhu uu socday intii u dambaysayna waxaanu awoodda saaranay in intaanay diiwaangelintu ina soo gaadhin dadkeenna qoys kastaba wax la gaadhsiin karo marka hore waxaan kula dardaarmayaa in guud ahaan diiwaangelintu uga dhacdo gobolkeena si nabadgelyo ah mar labaadka in la ixtiraamo howlwadeennada goobaha codbixinta wixii cabasho ah ee halkaa laga arkana loo soo gudbiyo maamulka heer goobeed heer tuulo heer degmo ilaa heer gobol in dadweynaha reer Gabiley meel kastoo ay joogaan ay iska diiwaangeliyaan gobolka Gabiley tiimamka iyo cilmi baarista ficil ahaan loo rogo waqtigiina ciriirigiisii noqdo dadkiina aanay gaarin dadku howlkan ma joogaan waxay joogaan goobihii laynagu tusayey projectorka marka dadka waxaa lagu lahaa haweenka annaga xukuumadda dhammaan inaan ka kacno oo aan dadkii haddaba baadi doonno sidaan u gaadhsiin lahayn balaaqa noocan ah إن شاء الله تعالى أننا نرفض إحنا قبلنا وضيضنا بريان بوحنا كبدني ورنا نوب حنا ولا لها قبلي ومجا عيجي ما شاء الله يمكن لو بصدر يلا عكتا قلبتنا وحنا هالكن كلنا هاي كلنا سقنا قاعدة نور بسيا مركب واحد دوري صندوق بين كفرة أنا جوا كهذا ضيّع مجا عبر بتشوف كذا هواك قبلي وحنا كده قاي $5 يا أنت نشوفه إنن waa Nimcaan Ibrahim TV qaranka Gabiley.